Muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa fogaanta loo yaqaano stopping distance. Determining the stopping distance waa go'aaminta markaasi fogaanta loo yaqaano fogaanta joogsiga. What is a stopping distance? Maxay noqon doontaa haddaba fogaanta loo yaqaano fogaanta istaagidda ama joogsashada? When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. Marka brayga la qabto markaasi gaadiid socda, the distance fogaanta markaasi it travels uu soconaya markaas before stopping ka hor inta uuna istaagin ayaa waxaa loo yaqaanaa markaasi stopping distance fogaanta markaasi istaagidda. Tusaale adiga oo gaadiid la socda ayaad waxaad ku tiri ninkii gaadiidkaasi waday ama travelkii halkaas gaadhiga jooji. 1 second kuma istaagi kara markaasi gaadhiga, laakiin fogaan yar buu socon doonaa kadibna waa uu istaagi doonaa. Fogaantaasi uu gaadhigu markaasi soconayo ka hor inta uuna istaaginba waxaa loo yaqaanaa stopping distance. Fogaanta markaasi istaagidda ama joogsashada ayaa loo yaqaanaa. Calculating stopping distance is important to avoid potential hazardous situations. Ka shaqaynta markaasi ama calculation ku samaynta markaas stopping distance fogaanta loo yaqaano fogaanta joogsashada is important for waxay muhiim tahay markaasi avoiding in laga fogaado markaas potential hazardous situationska ilxaadka markaasi xaaladaha waxyeelada leh, sida in gaadhigaasi uu kusoo dhawaado gaadhi kale, ama in gaadhigaasi uu qof kusoo dhawaado, ama in gaadhigaasi uu goob kaleba kusoo dhawaado oo markaasi khatar ku ah markaasi gaadhigaasi inuu socodkaasi sii wado. There are many factors that can affect the stopping distance of a moving vehicle. Waxaana jira markaasi factors ama waxyaabo badan oo saameyn ku yeesha fogaanta loo yaqaano stopping distance ama fogaanta istaagidda. Kuwana waxay noqonayaan waxyaabahan soo socda. Waxa koowaad ee saameynta ku yeelanaya markaasi stopping distance-ga waxay tahay markaasi speedka ama xawaaraha. Haddii gaadhigaasi speedka uu ku socdo ama xawaaraha uu ku socdaay uu sarreeyo, macnaheedu waxay tahay stopping distance-giisu waa ay badanaysaa. Sidoo kale waxaa stopping distance-ga saameyn ku yeelanaya waxa uu yahay weight-ka gaadiidkaasi ama culayska gaadiidkaasi. Sidoo kale waxaa saameyn ku yeelanaya road condition, xaaladda ay ku sugan tahay markaasi waddadaasi uu gaadiidku marayo. Xaaladaha markaasi waddada ay ku sugan tahay waxaa ka mid ah waddadu inay noqoto markaasi slide, waddo markaasi uu gaadiidku ka silsilban karo, ama inay tahay ice mid uu baraf fadhiyo, ama inay tahay markaasi snow mid uu baraf ka da'ayo, ama inay noqoto dry mid qalalan, ama inay noqoto wet mid qoyan. Kuwan waxay yihiin xaaladaha ay ku sugan yihiin markaasi waddooyinka. Cycle brake condition sidoo kale waxaa saameyn ku yeelanaya stopping distance-gu waxa uu yahay xaaladda uu ku sugnaanayo markaasi brake condition, brake markaasi gaadiidkaas. Gaadiidka qaarkood brake waa uu fudud yahay, saas daraadeed marka la qabto waa istaagi doonaa, halka qaarkoodna wuxuu yahay kadibna waqti badan ay qaadanayso inay istaagaan. Saas darteed xaaladaha uu ku sugnaan karo brake gaadiidkaasi waxa uu noqon karaa markaasi old speed or unrotaries or one bed on unrotaries. Daawaha markaasi ama birta uu ku jiro taayirka gaadiidkaasi oo markaasi mid qadiimiya ah ama mid gaadiidkaasi ku raagtay ah, ama rotarieska birta loo yaqaano birta joojisa markaasi taayirka marka gaadhiga la qabto brake. Aan aragna haddaba muuqaal ahaan sida ay u eeg yihiin markaas beariska ama daawaha ama birta ku dhex jirta taayirka gaadiidka socda, iyo sidoo kale birtan qabanaysa marka gaadiidka la qabto brake taayirkani wareegaya. Qaybtani koobaad markaasi waxay tahay qaybta uu ku jira markaasi taayirka gaadiidku, waxaana loogu talagalay in la geliyo markaasi caagga taayirka ah. Halka qaybtani labaad ee birta dul taalla ama qaybtan daawaha dul taalla loo yaqaano markaasi rotaries. Qaybtan ayaa loo yaqaana magaca rotor, qaybtana waxaa loo yaqaana markaasi bearing. Sidoo kale stopping distance-ga waxa saameynta ku yeelanaya waxay tahay braking technology of a vehicle, tiknoolajiyada markaasi joojinaysa brake markaasi gaadiidkaas, iyo sidoo kale tire conditions xaaladaha uu ku sugan yahay markaasi taayirka gaadhigaas. This leads us tanna waxay nagu hogaaminaysaa markaasi actual formuladii markaasi dhabta ahayd for working out ee lagaga shaqeynayo markaasi braking distance fogaanta markaasi joogsashada ama istaagidda. The formula qaacidadii markaan ka hadlaynay ee ahayd markaasi qaacidada stopping distance-ga
is based on ayaa waxay ku salaysan tahay markaasi the velocity kaynaanka ama speed xawaaraha of the vehicle uu ku socdo markaasi gaadiidkaas and the coefficient of friction iyo sidoo kale markaasi wehelyaha isliska ee between u dhexeeya markaasi the wheel taayirka markaasi gaadiidkaasi and the road iyo sidoo kale wadadaasi uu marayo coefficient of friction wehelyaha isliskana waxaa loo soo gaabsadaa calaamadda markaasi neo braking distance sida fogaanta loo yaqaano fogaanta markaasi brake ayaa waxaa lagu helaa markaasi v square oo loo qeybiyo markaasi 2a halkaasoo v square ay u taagan tahay kaynaanka gaarigaasi ku socdo la square oo loo qeybiyo 2 oo lagu dhiftay accelerationka e sidaasoo kula timida v square markaasi oo loo qeybiyo mar labaad 2 oo lagu dhiftay neo oo ah coefficient of friction ama wehelyaha isliska oo lagu dhiftay gravity sida haddaba labadan equation ama qaacida isku waafaqayaan oo loogu wada isticmaali karaa braking distance this is because for tana waxay sabab u tahay a car coming to stop gaarigu marka uu istaagayo the friction isliska daraadii accelerationka ee waxa uu kula mid yahay markaasi neo times g oo ah markaasi coefficient of frictionka oo lagu dhiftay gravityga g saas darteed equationkii horeen haysanay halka accelerationku yaala waxaan ku bedelinay neo times g experiments have shown that for a dry road the coefficient of friction is about 0.7 tijaabooyin ayaa markaasi waxaa lagu helay in the dry roads wadooyinka markaasi qalalan ama aan qoyanayn the coefficient of friction weheliyahooga islisku is about uu ku dhow yahay markaasi 0.7 for wet roads sidoo kale wadooyinka qoyana is about waxa uu yahay mid ka dhow markaasi 0.4 saas daraadeed marka aan ka shaqaynayno braking distancega waxaan isticmaalaynaa waxay tahay ama waa wet road ama waxay tahay markaasi dry road wado qalalan gaadiidku socdo iyo wado qoyan socdo hadduu wado qalalan socdo markaasi coefficient of frictionka waxaan u qaadanaynaa 0.7 hadduu wado qoyan socdana waxaan u qaadanaynaa 0.4 the starting distance is then the sum of starting distancega ama fogaanta markaasi istaagiddu waxay noqonaysaa the sum of isku darida markaasi reaction distance fogaanta markaasi ka falcelinta and braking distance iyo sidoo kale fogaanta brake reaction distance waa maxay haddaba fogaanta loo yaqaano fogaanta ka falcelinta reaction distance waa maxay is the distance you travel from the point of detecting the hazard until you begin braking or swerving reaction distance sida fogaanta loo yaqaano fogaanta ka falcelintu waxay tahay distance sida uu qofku socdaalayo markaas ama gaadiidku uu socdaalayo reaction distance sida waxay tahay fogaanta uu gaadiidku socdaalayo from the point of detecting barta uu ka dareemo markaasi ee hazard waxyeelada ama khatarta until you begin ilaa uu markaasi qofkaasi gaadiidka waday uu bilaabo brake inuu brake qabto tusaale markaasi barta ee isagoo gaadiidku maraya ayaa waxa uu dareema markaasi waxyeelo marka waxa uu bilaabi doonaa inuu qabto markaasi brake marka uu gaaro markaasi barta b marka uu brake qabto kadibna waa uu istaagi doonaa markaasi barta c inta u dhaxaysa markaas barta uu ka dareemay khatarta ilaa barta uu ka bilaabayo inuu brake qabto fogaanta u dhaxaysa waxaa loo yaqaanaa reaction distance waxaana loo soo gaabsadaa SR sidoo kale fogaanta u dhaxaysa bartii uu brake inuu qabto uu ka bilaabay ilaa laga gaadho markaasi inuu gaarigaasi ka istaagayo inta u dhaxaysana waxaa loo yaqaanaa markaasi braking distance waxaana loo soo gaabsadaa markaasi SB stopping distancena waxay noqonaysaa markaasi isku darka markaasi labadan distance waa distanceda u dhaxaysa barta uu qofku ka dareemo waxyeelada ilaa barta uu ka bilaabayo inuu gaariga brake qabto iyo sidoo kale barta uu brake gaadiidka ka qabanayo ilaa gaarigu markaasi ama gaadiidkaasi uu ka istaagi doono isku darka markaasi labadani distance ayaa waxaa laisku yidhaahdaa stopping distance ama fogaanta markaasi istaagida the time markaasi waqtiga between u dhexeeya being where the first stopped measuring taagnaanshaha markaasi halkii laga bilaabay cabiraada and where the car begins braking ilaa markaasi halka uu gaarigu ka bilaabayo brake in la qabto iskoolada waxaa loogu yeedhaa markaasi the reaction time gaadiidku waa uu socdaa isagoo markaasi gaadiidku socdo ayuu barta ee isagoo maraya waxa uu dareemay markaasi inay waxyeelo jirto kadib waxa uu qabanayaa markaasi brake marka lasoo gaadho barta xigtee loo yaqaano barta b timeka markaasi ay ku qaadanayso gaarigu inuu barta ee ka dhaqaaqo waa barta waxyeelada ka dareemay ilaa uu gaariga barta b oo ah barta uu brake gaadiidkaasi ku qabanayo timeka u dhexeeya waxaa loo yaqaanaa reaction time TR sidoo kale fogaanta u dhexaysana waxaa loo yaqaanaa reaction distance SR barta brake gaadiidka uu ka qabanayo ilaa barta uu ka istaagayana fogaanta u dhexaysa waxaa loo yaqaanaa
breaking distance waxaa loo soo gaabsadaa sp. as an equation isleeg ahaan looking the calories of speed inagoo eegayna xawaaraha gaadiidka distance traveled fogaanta uu socdaalayo over period of time waqtiga markaasi ay ku qaadanayso the reaction distance fogaanta markaasi ka falcelinta oo loo soo gaabsado sr waxaa lagu helaa markaasi the car's speed xawaaraha uu gaadiidkaas ku socdo oo lagu dhuftay reaction timeka waqtigii markaasi ka falcelinta. reaction distance waxaan usoo gaabsanaynaa markaasi s reaction waxaanu ka helaynaa speedka gaadiidkaas ku socday v oo lagu dhuftay timeka ay ku qaadatay t. sidoo kale waxaan ogeyn stopping distance sida ama fogaanta istaagidda in lagu helayay reaction distance sidoo loo soo gaabsado s markaasi r oo lagu daray breaking distance. saas daraadeed reaction distance waxaa lagu helay bay ahayd v times t sidoo kale breaking distance-diina v square oo loo qeybiyey 2 times mio times gravity. saas daraadeed stopping distance qaacidada guud ee lagu helaa waxay tahay v times t oo loo geeyey v square oo loo qeybiyey 2 oo lagu dhuftay markaasi mio oo taagan coefficient of frictionka oo lagu dhuftay markaasi gravity-ga g.